waxaan maqlayaa markastoo dhigayga ku soo dhacayo in mar walba dadka lagu celcelinayo nabadgelyada ilaasada Somaliland awdal waa nabadgelyo awdal wax dhibaato ka taagan ma jiro waa nasiib darro in doorashadii madaxtooyada oo ay 6 bilood ka hadhan tahay in xisbiga talada haya ee kulmiya oo maanta ku ololeeyo dekada loo hay ayaan $1 milyan ku dhisaya wasiiraduna madaxweyne rayaale gabaad ka soo dhigteen iyagoo khalay intii dadkii maadaan lama hadli karayaan haddii xisbiga kulmiya uu rabo reer awdal inuu wax la dabacsan hadduu rabo waxay soo deyn lahayn miisaaniyadda 2024 wax kastoo iminka awdal laga yiraahdaa wuxuu noqonayaa campaign kulmiya iyo reer awdalna maanta way iskaranayaan siyaasi Axmed Muumiseed oo ahaa wasiirka hore wasaaradda beeraha Somaliland oo maanta shir jaraa'id ku qabtay hotel Sawe gudaha magaalada Boorama ayaa waxa uu markii ugu horeysay ka jawaabay hadallo shalay ka soo yeedhay madaxweynihii hore ee Somaliland Daahir Rayaale Kaahin kaasi oo kulan shalay u qabtay bulshada gobolka Awdal wuxuuna siyaasi Axmed Muumiseed halkaasi ku soo bandhigay dhaliilaha kala duwan ee dul hooganaya xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale sida ay bulshada gobolka Awdal uga aradan yihiin isagoo sidoo kalena siyaasi Axmed Muumiseed dhaliilo kala duwan dusha uga tuuray mas'uuliyiinta iyo wasiirada xukuumadda Somaliland ku matala bulshada gobolka Awdal kamid ah rabaa in sultaaga waxa weeye madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin wuxuu shil ka dhawaajiyay inuu hayo in la soo dhibay lacag $1 milyan xukuumadda kulmiya ay rabto inay ku dhisto dekada Lughaya runtii waxaan dareensanahay shacabka reer Somaliland iyo shacabka ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba dareemo kala duwan baa laga bixiyay arintaasi waa nasiib darro in doorashadii madaxtooyada oo ay 6 bilood ka hadhan tahay in xisbiga talada haya ee kulmiya oo maanta ku ololeeyo dekada loo hay ayaan $1 milyan ku dhisaya dekada Lughaya waa dekadii madaxweyne Muuse Biixi markii hore uu kula shurutay ku wareejiyay oo soo saxay barbuusirkeegii hore inuu ku wareejin doono dawladda alkijaarka ee Itoobiya maanta wuxuu u dhisayaa $1 milyan bixinaya runtii aqliga dadka reer Awdal ee aqoonyahanka iyo salaadinta waxgaradka reer Awdal ama qurbaha joogan ama gudaha joogan waa iyo aqligooga la'aaya waxaynu ognahay oo biyo kama dhibcaana in xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi hogaaminayay madaarka Boorama ballan qaaday inay dhamaystirto dibadna maalin la yimid oo sawir la galay dibadna madaarkii ilaa imika uu xiriyo halkiis taagan yahay waxa marag Madonna in garoonka Xaaji Daahir Allah naxariiste beertiisa uu ka bixiyay ee caruurtu ku ciyaaraysay oo maanta uu xaniban yahay sanadadan uu xaniban yahay waxaana lagu qiyaasay $50,000 ama $45,000 xaniban oo dawladda kulmiye taariikh kari weydina bayso waxa marag Madonna wadada isku xiraysa fardaha ilaa Djibouti ama Boorama ilaa Djibouti in ilaa imika meel ay ku dambaysay iyo meel ay arintooda maraysa aan war loo hayn sida wararka qaar ay sheegayaan ama xildhibaanada golaha baarlamaanka ee ugu jira gobolka Awdal hore u iftiimiyeenba arintaasina waxay dul hoggaanaysaa dul taala xukuumadda kulmiye la sheegay inay arinta xanibtay oo iyadoo hoosta u martay waxa marag Madonna wadada Baki iyo Boorama oo xukuumaddu dhagax dhigtay in maalintii cagafta la geeyay cagafta ay xadhay dibadii aan wadadii lagu noqon inay imika shaqo ka socon waxa marag Madonna oo shacab reer Awdal ka dheeraysan yihiin librarigii magaalada Boorama laga dhisay in ilaa maanta uu xidhan yahay qalab la'aan waliba shirkadda saan wararka ku helayna ay markaan xalay wareysay dadka shirkadii dhistay ay ilaa imika lacagteedii maqan tahay waxa isku kaaya qaban la reer Awdal isku qaban la iyadoo arrimaha soo dhinay ay jiraan iyadoo doorashooyinka ay ka hareen 6 bilood in haddana maanta dekadii Lughaya la dhagayo $1 milyan lagu bixinayo in ku soo darsa in la yiraahdo waxaan u aragnaa in aqliga dadka la caayo waxaan leeyahay madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin madaxweyne hore Somaliland runtii arrinkaasi mudane madaxweyne uu ku hoos maray
waxa la rabaa shaarkaaga nadiifta ah ee aad Soomaaliland ku dhex marisay ee aad shalay timiday darra timiday hore aad u timiday dib aad u timiday ee maalmaha qaarkood aanu ogeyn in madaarka leh in madaarka Hargeysa in saxaafadda al kula hadasho in lagu diiday aynu ogeyn in maanta lagu yiraahdo kulmiye wasiiradii kula socda in lagu yiraahdo dadkaagii loo dhextay kelmadda runtii waa nasiib darro waana arrin madaxweyne ku hoos martay Soomaaliduna waxay tiraahdaa nin khabar dhashay hal miseeg waayo madaxweyne adigu wasiirkii maaliyadda matid madaxweyne adigu kama mitid golaha wasiirada xukuumadda madaxweyne Muuse Bixi wasiiradii garabkaaga fadhiyeen haddii milyan la bixinayso xukuumaddu iyo haddii 2 milyan bixinayso iyo haddii run sheegaysa haddii been sheegaysaba waxay ahayd in wasiiradii ka wakiilka ahaa inay afkooga ku hadlaan bay ahayd in waxay adiga ku leeyihiin iyagu ay sheegaan bay ahayd mudane madaxweyne waxaa loo jeeday kaliya in shaarkaaga cad la wasakheeyo xalayna waan dareensanahay social media waanu la soconay dhibaatada halkaa ka soo gaadhay waanu dareensanahay ka gobol ahaan waana runtii arrin adigana ku hoos martay madaxweyne reeawdana haddii aad intii adeysatay waddanka haddaad wax u qabatay iyo haddaad waxba u qabanba sharaf iyo karaamay ku hayaan magamada madaxweyne waxaan kugula dardaarmayaa arrimaha qaarkood muxuu ahaay iska fiiri waan kugu taageersanahay madaxweyne inaad dhexdhexaad tahay waxaad tiri dhexdhexaad baan ahay shaki badan baa jira madaxweyne dhexdhexaad markaad tiri dhexdhexaad baan ahay haddana waxaad arkaysaa waxa muuqata in garbahaaga ay joogeen golihii wasiirada xukuumadda Muuse Bixi milyankan iyo soo diritaankaaga iyo joogid iyo muxuu ahaay golaha wasiirada kula socday soo dhaweynihii awlaan lagu sameyn jiray lagu sameeyba intuba waxayna tusayaan hadaan xisbadii mucaaradkii inay tahay arrin campaign oo kulmiye wado ayanu iyo biyo kama dhibcaana saasanu anaguna aaminsanahay shacabka reer Soomaaliland iyo shacabka ummadda muxuu ahaay gobolka Awdalna taasi aaminsan tahay gobolka Awdal iyo kulmiyana maanta way is ogyihiin loona kala sheekayn maayo madaxweyne xisbiga kulmiye sababta isagu uu soo qaadi waayay milyanka iyo ballanqaadka uu soo qaadi waayay oo la ogyahay inayna kulliba runayd waxa weeye cabsi uu ka qabo shacabka reer Soomaaliland inay aaminin inta meelood aan soo sheegayna ilaa imika way taagayeen haddii xukuumadda kulmiye ay la doonayso dadka reer Awdal haddii ay la doonayso inay wax u qabato miisaaniyadii 2024 ee madaxweyne Muuse uu celiyay uu daadifiyay oo yiri miisaaniyadii hore hal isticmaalo ayay reer Awdal waxa ugu jiray in ka badan dhowr wado oo ay ka mid tahay wadada isku xiraysa Boorama iyo Baki iyo wadada isku xiraysa Xariirada iyo muxuu ahaay isku xiraysa Boon iyo wada lagu weecinayo Saylac iyo wadooyin kale waxay ku jireen miisaaniyada 2024 ku jireen haddii xisbiga kulmiye uu rabo reer Awdal inuu wax la dabacsan haduu rabo waxay soo deyn lahayn miisaaniyada 2024 mudane madaxweyne daayirayaale waxaad shalay soo martay wadada u dhaxaysa Boorama iyo caasimadda Soomaaliland Hargeysa Kalbeed markaad joogto wadada Hargeysa ilaa Kalbeed wadada halkay joogto waad artay halka Kalbeed markuu wadada joogto wajaale martaa Kalbeed wadada markay taagan tahay hore uma soo baxayso hore uma soo dhaqaaqayso halka Kalbeed bay wadooyinku ku joogan sababta wadadu Kalbeed u soo dhaafi lahayd madaxweynaha isweydiisan bay shacabka reer Awdalna way ogyihiin siyaasiyiin iyo waxgarad iyo cid walba way ogtahay marka arrintaasi shalay nabar gartay ahayd waxa soo dhan waa waxay dadku qabsadeen madaxweyne xukuumadda kulmiye aan anigu wasiirka ka ahaa wax loo tiriyo koob waxa ka laba mashruuc baa madaxweyne shacabka reer Soomaaliland inay ogaadaan mid wuxuu ahaa kaabada qorgaab ee jaamacadda Amuudiya isku xidhaysa Boorama midna waxa mashruuc 5 milyan ah in aanu keenay ee SDF-ta sanduuqa laga maalgeliyay dhaqaalinta ciidiyo biyaha ee darad bada saabka iyo wasaaraddu ay xidhay aanu ka fuliyay aan dhagax dhigay fulintiisana wasiiradii dambe lahaayeen ee aanu saxiisana aan lahaa bilowgiisana aan lahaa in degmada Bak degmada Xeego
oo badan iyo xaga ka beerlida beer roobaadka aanu siinay solar system iyo barkada biyaha ku kaydiyaan beero ku waraabiyaan iyo dila iyo jaaraha horato iyaguna dhaqaalinta ciidiya biyaha beeraha la xidhxidhayay barkada fara badan iyo balayana aanu ka sameynay imikana mashruuca 3 sano socday dad badan baa shaqo abuur ka helay mashruucaas waa mashruuca kaliya ee raacdo tirsaday waana mashruuc intaan in wasaaradda joogaan keen golaha wasiirada ee madaxweyne shalay daayirayaal kula socday hal wasiir oo reer awdala oo u bareeray inuu mashruuc gobolka keenay ma jiro waxaan maqlayaa markastoo dhigayga ku soo dhacaya in mar walba dadka lagu celcelinayo nabadgelyada ilaasada Soomaaliland awdal waa nabadgelyo awdal wax dhibaato ka taagan ma jiro awdal wax dhibaato ka dhacayana ma jiro awdal waa Soomaaliland laakiin reer awdal wixii hadda ka dambeeyay ay marka horeba dadkii 3 ka sano dhashay ayaa qaangaar noqday social media bay la socdaan shaqaaleynta wasaaradda la socdaan mashaariicda gobolada dalka ka socotay la socdaan marwaba waxbay arkayaan dhagowga waxbay maqlayaan indhowga waxbay eegayaan waxay rabaan reer awdal nin yar iyo nin weyn iyo nin wasiir iyo nin soo maray madaxweyneba dadka reer awdal waxay dalbanayaan markastoo ay anaguna ka nahay Soomaaliland in loo sinaado oo la wada lahaado wadii shalay reesor ku taamiyay madaxweyne mudane Muuse Biixi Cabdi waxay reer awdal ka doonayaan waxaad gacantaada ku hayso inaad wax ka tirtir ka doonayaan hadda iminka laakiin doorashadii bay 6 bilood ka hadhay wax kasto iminka awdal laga yiraahdaa wuxuu noqonayaa campaign kulmiye iyo reer awdalna maanta way iskaranayaan wasiiraduna madaxweyne rayaal gabaad ka soo dhigteen iyagoo khalay intii dadkii maadaan lama hadli karayaan sababtoo ah waxay og yihiin in xukuumaddan fashilantay waxay og yihiin inay wax qabad la'aan ku fashilantay waxay og yihiin inayna awdal wax maanta loogu ololeeyo oo kulmiye u yaala aanu jirin bay ogyihiin ugu dambeyntiina siyaasi Axmed Muumin Seed waxa uu dhaliilo kala duwan ka difaacay qurba joogta gobolka awdal arinta labaad ee labayso waxa weey arinta qurba joogta runtii Soomaaliland markay goonidu isku taagayga la soo noqotay 1991 dagaaladii Soomaaliya dalka ka dhaceen ilaa maanta marayna 2024 3 ka sano qurba joogta reer Soomaaliland gaar ahaan qurba joogta reer awdal waxay iyo hooba la garab joogan gobolka awdal iyo dadkooga waxaad ogtahay waxa la ogyahay oo laga wada dhirsan yahay 30 bisha in aanu dahabshiil iyo xawaaladaha faraha badan ee awdal ku yaala in kuyuga dibadda dadku ay fadhiistaan baa loo yahay dadka qurba joogta waxay naga mudan yihiin inaynu u mahadnaqno inaynu wad mahadsantiin waxa dadkiina dalkiina u qabatay wad ku mahadsantiin sida dadkiina baahan u ilaalinaysa wad mahadsantiin dad baa guriga loo dhisay madaxweyne MC Jan Disney ka weerar waxaanu ka dhisay qurba joogta